السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هذا عشريني دب cusboonaysiinta ee Adobe Photoshop maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeena saddexaad. waxaan qoraynaa marka horeysa create new baan leeyahay kadib waxaan iska oranayaa create wax cabira ma gashanayo waayo waxaan doonayaa maanta inaan sharaxno waxa weeyaan toolbarka. marka create baan leeyahay create marka ay dhacdo gudaha soo galo Photoshop toolbarkan ayaynu sharaxi doonaa. laakiin intaan casharka bilaabin waxaan ka codsanayaa fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe noo saar, like noo dhiirigeli, wixii faallad qabto commentiga hoose igu reeb, casharkana sii share garee oo la wadaag asxaabtaada. marka haddii aynu casharka bilaabno waxaynu ugu horeeyo waxa weeyaan move tool oo isagu marka horeysaba ku dooran marka horeysa soo furto Adobe Photoshop tuulasha kale ee meesha nagu jiraan sharxi doonaa. laakiin move toolka marka horeysa waxa loo isticmaalayaa waxaan doonaynaa casharada inaynu ka bilowno as a basic inaynu ka soo bilowno halkii u hooseysay. move toolka marka waxaad u isticmaalaysaa waxa weeyaan inaad wax ku dhaqaajiso object-gan marka doonaysa inaad dhaqaajiso waxaad isticmaalaysaa waxa weeyaan move tool adigoo jooga ayaad shayga dul imanaysaa kadib saas ayaad u dhaqaajinaysaa. marka waxaa jirta wax la yiraahdo auto select oo aad furanayso marka doonaysa inaad ashyaa dhaqaajiso. laakiin halkan haddii aad arkayso image hoosteeda ayaa laga furtaa auto select. haddii aan ka qaado clickta waxaad aragtaa shaygan ay dhaqaaqay, laakiin haddii aan control h idhaahdo imika oo aan halkaa dhigta mid kan kale ma dhaqaajin karo. waxaad arkaysaa kaliya kii select gareysna ayaa ii dhaqaaqay waxaana ii furnayn. marka auto select marka waxay ku qabanaysaa waxa weeyaan kolba object aad dul joogtay aad click tidhaahdo inuu selectionka kugu wareejiyo. imika waxaad arkaysaa layerkiga ka hoose haddii aan doorto kan weeyaan layerkiga weeyaan, meel kastoon tago layerkaas un baan dhaqaajinaya. wax auto selection ah oo ii samaysnaanaya ma jiro ama layer kale oo aan dhaqaajin karaa ma jiro ilaa aan anigu layeriska kasoo doorto layerkaan doonaya inaan select gareeyo. laakiin auto selection markaad furato kanaan dhaqaajinaya haddana ayar baan kan dhaqaajinaya kolba kii aan dul tago ee cursorkaygu dul joogo ee selectionkaan saarto ayaa ii dhaqaaqaya. move toolku markaa kaa weeyaan. waxaa inoogu jira wax loo yaqaano selectioniska ayaa inoogu xiga oo saddex nooc oo isku xiga. mid waxaa loo yaqaanaa mercury selection tool, mid laser tool baa loo yaqaanaa, midna waa quick selection tool iyo magic selection tool. saddexdaas selection baa isugu keen xiga. ka horeeya waxaa la yidhahdaa mercury selection tool, halkan buu inoogu yaalaa move toolka hoostiisa haddii aad arkayso. markaa afar nooc buu isugu jiraa rectangular mercury tool, circle mercury tool ama ellipse mercury tool oo selection ah iyo line. marka rectangularku waa kan u sareeya rectangular mercury tool. sidan baad leedahay waxaan samayn karaa inaan inta gaarka ee selection ku saaray object-gayga inaan masaxo ama aan ka saaro inta eraser soo doorto. haddii aan eraser tago aan click dhahdo wuxuu leeyahay this shape layer must be rasterized before proceeding. rasterize the shape inaan shape-ka rasterize gareeyo ayuu doonayaa si aan u masixi karo. okay haddii aan dhahdo waxaad arkaysaa intaas selection ku saaray ayaan masixi karaa. waa marka aan rectangularka joogo. markaan doonayo inaan selectionka ka qaado waxaan tegi karaa ayar select kadib waxaan dooran karaa deselect ama waxaan ayar taaban karaa control iyo d oo shortcut-ka ah. control iyo d markaan taabto selectionka ayaa iga qaadmaya. haddii aan ku noqdo mercury selection toolka waxay noogu hoos jiro isaguna elliptical mercury tool oo ah qaabkii aad isagana circle ahaan oo kale aad selection ugu samayn lahayd. haddii aad arkayso waad arkaysaa circle weeyaan. marka waa markaad doonayso inaad circle selection samayso iyo markaad doonayso rectangular selection inaad samayso mercury toolka labadaba waad ka helaysaa. waxay noogu xiga waxa weeyaan laser tool oo isaguna selection ah. marka wuxuu ku fiican yahay isagu meelaha aan regular shape-ka lahayn ayaa lagu sameeyaa. haddii aad arkayso waxaan sameynaynaa halkaa click dhahdo oo aan la raaco selectionkayga shaygan aan doonaya inaan select gareeyo anoo shape-ka aan doono ku samayn kara ama selection nooca aan doonaha ku samaysan kara. halkii markii hore haddii aad arkaysay mercury-gu wuxuu ahaa keliya rectangle iyo wuxuu ahaa elliptical iyo line tool, saddexdaas ahaa. laakiin kan waxa weeyaan irregular shape baad ku samayn kartaa wax aan shape sax lahayn ayaad ku samayn kartaa oo selection ah. haddii aan imika isku xidho waxaad arkaysaa selection ayuu isugu ka bedel, laakiin shape aad ugu hagaagta ma laha. rectangularna ma aha ellipticalna ma aha, waa shape waa irregular shape ama wax aan shape sax ah lahayn weeyaan. haddii aan control d idhaahdo oo selectionka iska qaado waxa kale inoogu xiga waxa loo yaqaano object selection tool iyo quick selection tool oo iyaguna ah imika inaan sidan oran karo oo selectionka markaa object-ga ayuu ii select gareynayaa qaab magic tool ama in isagu AI isticmaalo oo markaan object-ga saa u mariyo intii isku kala uu ii select gareeyo ama edges-ka uu selectionka ii raaciyo weeyaan. marka selection ahaan ayaad isagana u isticmaali doontaa. waxay noogu xiga waxa weeyaan frame toolka crop toolka ayaa noogu xiga oo ah kii aad ku jaraysay
artboardkaaga haddii aad arkayso. haddii aan imika sidaa idhaahdo artboardka gebigiisaba intaas laiga soo reebaya. haddii aan sidaa idhaahdo intaas ayaa laiga soo reebaya. haddii aan sidan u ballaariyo intaas laiga soo reebaya. hadba inta aan anigu geeyo ayaa laiga soo reebaya. marka isagana waxaad isticmaalaysaa markaad doonayso artboardkaaga inaad yarayso ama aad size-kii aad hore marka hore ugu soo gashay inaad wax ka bedeshay markaad doonayso. waxay noogu xiga waxa loo yaqaan frame tool. frame toolku waxa weeyaan sida markaad doonayso rectangularka inaad ku samaysato. markaad doonayso rectangularka inaad ku samaysato creating cribbing mask markaad samaynayso aad doonayso inaad rectangular sawir dhex geliso qaabkaas oo kale ayaa isagoo isticmaalaysaa. haddii aan imika sidaa idhaahdo frame toolkan framekeygi markuu kan yahay waxaan samayn karaa waxa weeyaan inaan ayar saa u dul keeno oo aan halkan layerska haddii aad arkayso uu ii dhex galay framekeygi. marka qaabkaas ayaad frameka u isticmaalaysaa. waa sidii markaad samaynayso waxa weeyaan creating cribbing mask markaad samaynayso oo kale weeyaan ayaad u isticmaalaysaa. haddii aan iska saaro waxay noogu xiga waxa weeyaan eyedropper. eyedropperka marka waxaad u isticmaalaysaa waxa weeyaan markaad doonayso laba shay inaad kalarada u kala wareejisto ama color sample markaad samaynayso ayaad isticmaali kartaa. haddii aad arkayso iminka laba rectangular baan samaystay. haddii aan mid kalarka ka bedelo aan nooca ka dhigo, haddii aan doonayo tan casaanka kalarkeeda inaan tan kala geeyo waxaan tegayaa eyedropperkayga kadib halkan click baan leeyahay. color sample-kii halkan ayaa laga soo dhigay color bannerka haddii aad arkayso. markaan doonayo inaan tan kale kalarka ku wareejiyo kale ayaan tegayaa double click baan leeyahay. kadib ayar baa waxaan tegayaa halkan color sample-kayga inaan tago click. waxaad arkaysaa kalarkii tii kale ayaa laga dhigay. waxaa kaloo samayn karaa inaan isla shayga aan doonayo kalarka inaan ka qaato aan click idhaahdo oo kalarka ta kale laigu ekeysiiyo. waxaa kaloo jirta waxa weeyaan laba artboard markaad isticmaalayso Photoshopka laba artboard ma soo wada furo wuxuu kugu soo kala furayaa laba document oo kala duwan. marka laba kala document oo kala duwan markaad joogto inkoo kale kanaan jooga haddii aan kan delete ka idhaahdo ama aan halkaa dhex dhigto waxaan doonayaa halkan ayaan object soo dhigtay rectangularkaas soo dhigtay caddaanka imika waxaan doonayaa kalarka uu shaygan leeyahay inaan rectangularkan siiyo. waxaan samaynayaa marka waxa weeyaan inaan doorto eyedropperkayga kadib aan click idhaahdo color sampling marka la sameeyo xaggan aan tegayaa kadib move toolkayga kanaan dooranayaa double click baan leeyahay. double click markaan idhaahdo ayar baan halkan color sample-ka click leeyahay kadib okay baan leeyahay. waxaad arkaysaa isla kalarkii ayaa la ii siiyey artboardka kale ii yaalay. qaabkaas ayaad eyedropperka u isticmaali kartaa. waxaa kaloo inoogu xiga waxa weeyaan inta aynu markaa graphic design isticmaalayno aynu sharixi doonaa waxa inoogu xiga brush toolkii oo isaguna ah inaad ku samaysto shayada imkoo kale hard markaad doonayso inaad samayso inaad qaabkaas oo kale ugu samaysto inaad brush caadi isticmaasho oo aad color ku soo gashato imka halka hoos oo kale inaad qaabka ugu soo geliso. marka brush toolka waxyaabo fara badan ayaad u isticmaali kartaa. waxa inoogu xiga waxa weeyaan eraserta oo iyaduna ah tii aynu wax ku masaxaynay. marka waxaa jirta eraser tool oo imika haddii aad arkayso haddii aan doorto rectangularkan aan okay idhaahdo waxaad arkaysaa qaabkaas ay ugu masaxaysaa headka. waxaa jirta iyadoo software oo haddii halkan soo furto oo aad general brusheska soo furto halkan soft roundka haddii aan doorto imika aan halkan sidaa idhaahdo waxaad arkaysaa isku si iguma masaxayso. tan dambe blur baa ku jirta hareeraha. tan waxay ahayd smooth bay ahayd oo si toosoo haadhay u jiraysay. labada qaab bay leedahay. waxaa kaloo jirta waxa weeyaan magic eraser tool oo iyada aad u isticmaali karto shay markaad doonayso background inaad ka saarto. laakiin background waxaa loo baahan yahay inay isku color yihiin. background color qura yahay objectiguna uu si fiican uga muuqdo. haddii aan imka halkaa click idhaahdo waxaad arkaysaa gebigeeda marba iga wada saartay waayo waa isku color. inta isku colorka ayay israacinaysaa. waxaa kaloo inoogu xiga waxa weeyaan pen toolkii oo isagana shaybuka aad ku samaysan doonto. text toolkii baa inoogu xiga. waxaa kaloo inoogu xiga waxa weeyaan shapes-ka oo iyaguna halka inoogu jira hadday rectangle-kii noqoto ellipse-kii triangle-kii iyo polygonal-kii halkan bay inoogu jiraan. marka tooliska badankooda hadhow markaan design samaynayno aynu sharixi doonaa insha Allah. halkaasna cashar ku joojinayaa. fadlan haddii aad channel-ka cusub tahay subscribe noo saar, like nagu dhiirigeli, wixii faalaad qabto comment-iga soo gudub. casharkana si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada. haddii aad wax su'aalo qabtana Telegram link-iga aan description-ka dhiga kusoo fiir wixii su'aalaha naga soo weydiin insha Allah. haddii aad baad mahadsantahay.